بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي بمهضله سبحانه وتعالى، إلهي بكليقي مهضله. waxaan marka hore aan jeclahay inaanu ummaddeena u ducayno. jidaal adag baa jira, meelana abaara laga soo sheegayaa. ilaahay subxaana wa tacaala roob deg deg ah oo raxmaad leh ilaahayna siiyo, ummaddeena siiyo, soo waraabiyo ilahay ka barinaa. waqtigii aynu gurman lahayn, aynu adduunka u qaylo doon lahayn, aynu dalkeena u gurman lahayn buu buuqina geliyey. ilaahay subxaana wa tacaala abaarta haynaga qabto iyo wixii mudara inoo wataba. waxaan jeclay maanta inaan u muujiyo shacbiga reer somaliland afartii saneyna dhaafay ee madaxweyne muuse uu dalka taladiisa gacanta u hayay wixiina soo maray. waynu isweydiinaa xaguu dalku maraya 4 sano ka bacdi, maxaa dhibaatayna soo martay, maxaa khayrina soo maray, maxaa horumarina soo maray. madaxweyne muuse biixi sidaa ogtihiin waa ogtihiin doorashadii ku yimi. doorasho way ahayd Soomaaliya markii hore kala qaybisay oo qabiil ku kala qaybisay, muran baa ka dhashay. alxamdulilah rabbi alcaalamiin, markaa annagaa soo afjarnay. marka annaga xusbi ahaan aanu ogolaanay doorashadii si kasta ha ahaatee aan danta qaranka eegnay. markii u horeysayba madaxweyne muuse wuxuuna geliyey dagaal tugaraqa oon laga tashan, reer yaroo meel iska fadhfadhay inaga dhigay, inala simay. erigii somaliland iyo puntland baa dagaalamaysa, waa ceeb inoo ahayd. intii ka bacda waxayna geliyey murankii caare oo jiitamay oo mararka qaarkood haddaanu waxyaalahan ku wada hadalay aan soo qori lahaa ama ku sheekeyn lahaa, somaliland aan maanta wada fadhideen. taas maxay ku dhamaatay? waatii naga galaafatay suldaankii nabadda maxamed xirsi qani, suldaan maxamed xirsi qani ee dhiig ku kacay, dhiigu ilaa maanta u buko. waxaan dan la galnay arrintii ilaahu naxariistee khaatumo cali khaliif, ilaahu naxariiste oo heshiisaan la galnay oon seexnay aniga iyo 4 wasiir la dhamaysanay. ayaanu soo marin kari weynay inuu heshiiskaa mariyo. calina waa kii naga galaabtay, ilaahu naxariiste. waxaan dana geliyey tii commissionka oo si qayxan uu ku soo magacaabay xubnihiisa, xubno aan waafaqsaneen shuruucdii iyo xeerkii commissionka. 2 sannadood iyo badh ayuu halkaas inaga khasaariyey. waxaan wadnaba waa tanu si wax kasta u sii daynay ilaa maalintu qabtay muuse dalka. shacbiga reer somaliland wuxuu ku bilaabay cunfi, qabiil, kala qaybsi iyo tamar daraan aan dalku istaagay oo wax shaqaynaya dysfunctional institutionski way baaba'een. waxaan xafiiskiisa ahayn oo dalkaa ka shaqaynaya ma jiro. madaxweyne muuse wuxuu ku kacay oo ogolaaday inuu 4 sannadood deegaan aan sharci loo kordhin inuu fadhiyo. markaan ku yidhi sharci kuma fadhiya, deegaanka kala dir, wuxuu igu jawaabay jiciirba 10 sano u fadhiyey. madaxweyne ku-xigeenka nala fadhiyo wuxuu ku yidhi jiciir berigii waa loo kordhiyey, deegaankaas waxbaa loo macmalay. ficilkaa qabiil ayaa muuse uu dalkii geliyey. muuse wuxuu bilaabay inuu aflagaadeeyo beelaha qaarkood, ahaata beelaha bariga ama ahaata beelaha taageeri jiray wadani, oo yidhi habeenaa guumoobi lahaa
cunfi iyo eex ayuu bilaabay. muuse wuxuu hirgeliyey in maanta baarlamaankii 10 sane sharci darada ku fadhiyey ilaa maanta mushahaar qaato. dadkeena ogtihiin hasey ku nool yihiin $2 milyan oo mushaharkooda ayaa ugu qoran 2001 ilaa 2022 markii waqtiga dhamaanayo. maanta 2 milyan waxay noo tari lahaayeen biyo dhaamiskan u gelin lahayn. muuse wuxuu sameeyey reshuffle buu sameeyey dowladnimo, halkaasuu ku rifay wasaaradihii beelaha hareero lahaayeen oo markii hore wax tabanayey ayuu diirka siibay. uu ku soo ururiyey awooddii beela khaasa oo beelaha dhex ah. muuse intaa waxaa ka daran annagoo saa u arkina inuu sharcigii iyo dastuurkiiba ka tegey ayaa xeerkaa la soo bilaabay 2021 horaantiisii. xeerkaasi inuu soo dhaafo haddaynu dad nahay, ummad nahay, dal eegisa iyo qaran eegisa, inuu soo dhaafo baarlamaanka ma ahayn. laanna wuxuu ka soo horjeedaa dastuurka, wuxuu ku jeeda waa qaran dumis ayuu ka soo jeeda. muuse waan ka wada hadalnay bishii abril. wuxuu iigu sheegay, uu yidhi bahalkaasi guurtida ayaan ku joojinaya, maaha mid ku qalma oo dee toos doorasho toosa oo asxaabaha wax suuragala maaha. asxaabtii hore marka la furiyo waxaa loo tartamaa amba deegaan amba baarlamaan. dastuurka ayuu si toosa uga imanaya. madaxweynuhu markii haddana lagu soo cogsay ee lagu soo takhaantuqiyey wuxuu ballan ka qaaday, uu yidhi kaasi waan celinayaa. warqadaas ku soo lifaaqay 3 beej. uu ku sababeynaya sababaha aanu u hirgeli karin. guddoonka cusub ayuu u soo dhiibay, iga celiya bahalkan anigu gacanteeda ku seexin maaye. muuse waxaa la yaab leh bahalku soo celiyey oo intaas ku soo lefaqay sababood. inuu markii doorashada ka dhacday wadani ee xilsi laga dhigay guddoomiyaha inuu tuuray oo yidhi siduu boqor yahay, oo yidhi waxaad tirahaa wasiirkiisa informationka madaxweyne wuxuu qabaa inay doorashadii inuu bahalka yahay magaranaysaa sharci, kuna khudbadeeyeen haddana berbera maku joogay. hadda waxa weeye ana waxaanu qabnaa muuse inuu dastuurka iska laaday, sharci la-aan wada ku wado. mar hadduu sharcigi tooray horta anaguna dee anagu sharci ahaan sharci baanu ku walaalanahay. dastuurka qaranka ayaanu ku wada joognay, beela kumana joogin. hadduu beela bilaabay, annaguna waxaan leenahay dastuurka uu jebiyey, dee annaguna waxaan ku sheegay madaxweynenimadaadii waanu ka tashanayna. maanta dalka waxa weeye ragga ku taageeraya qabiil ee ku taageeraya sharci darada uu shalayta qaarkood xidhay, uu sharci darro ku xidhay, uu ka tanaasuliyey, haddana maanta ku taageeraya qabiil. haddaad ku taageertaan sharci darro madaxweyne muuse, annagu ku taageeri mayno. shacabka Soomaaliya waxaan leenahay muuse dalkan inuu ka dambeeyo ma rabo. muuse dalkan wuxuu ku celinaya 94. waxaan kula talinaya dadkiini la isku xidhxidhay ee loo diiday inay guryo dhistaan, ee loo diiday inay baabuurka wanaagsan ka haystaan, ee xawaalihiina meel kasta yaaleen, ee dalkiina loo qorsheeya in dadka la dejiyo. muuse hadduu mar kale reer idin kala saarayo, waxay la tahay inaan ka tashana. dalka iyo dadku ma kala maarmayaan. maanta hadday Somaliland idinka burburiyo qabiil idin geliyo, idinkoo ka liita 60kii
oo nafsadii la bedelay ayaynu xamar u kala ceeran doontaa u kala dheeran doontaa anigu waxaan leeyahay shacbiga reer Somaliland waa inay tala la gaadhaa la qabtaa shir wada tashi qaran oo badbaado ah madaxweyne Muuse Biixi maalintii igu soo tuuray koobka dalada waxaan ku iri warnamax ayaa la xidhiya wixii waa in la xidhaa xaq buu leeyahay waxaan haddaa la xidhiyo dee haddaba aan ciidamo samaysano haddaa bilaa sharci dalka lagu xidhiyo waxaan warheedhe madaxweyne dalkan ma wadi kartide inoogu dhiib Cabdiraxmaan Sayliga ugu soo kacay tii baan ku celin karay had maantana Muuse wadankan ma wadi karo afartaa sanadood fabrikii ummadda u dhaxeeyay iyo alkii iyo raximkii iyo walaal uu baaburiyay waxay la tahay aqliga keena Muuse waa in laga tashada dalkan la badbaadiya ragale hadday doorasho dhici weydo cirka soo dhacayo haddii doorasho dhici weydo madaxweyne noqon maayo laba nin oo siman baa noqon doona laba nin oo siman ayaa noqon doona hadduu dastuurka alaalo kaasaa isku kaa xidhiyey hadduu dastuurka jebiyey madaxweyne maaha laakiin waxaan leeyahay caqliga ha shaqey Muuse waxaanu helnay magac baanu helnay doorashooyinkii adduunkaa nagu soo afhaya khayr baa soo socda khayrkaa haddaad leedahay ka hortag ood leedahay horaan un sheegaad leedahay waa dukaan aan leeyahay Somaliland dukaan aan leedahay maaha dalkeena waad ogtahay ummaddeena cashuurta laga qaado siday ku nool yihiin 80% ayaa maalinta labaad qadada labaad ka warwara waad ogtahay tacliin waxbarasho ma bixino biyo ma bixino layd ma bixino caafimaad ma bixino waa intii dowladda u samaysnay waxaa dadku naruuri hayay nabadgelya haysteen mustaqbalay ku noolaan rajay ku noolaan rajadii waad ka dishay wataa dhalinyarteeni badhnaha saxaraag taagan yihin badhna xamar taagan yihin maanta dalku wuxuu u baahan yahay badbaado ilaahu naxariista maxamed xaaji ibraahim cigaal buu u baahan yahay halku inaga qaaday maanta maalinteedii waa inaan isku tagnaa dalkeena ka badbaadinaa gacanta guracan غير مسؤولينta soo daynaysa ee mikrofada u dhiibisa dadku ma sii fogeynayaan cunfi bay dhalinayaan dastuurku soo noqon kuleena doorashada madaxweynaha haddaa dastuurka ilaahan weyday ballan waxaan ku qaaday inaad hal habeen aad madaxweyne sii ahaa 24 hours adoo Muuse Biixi inaad halkaa ka bixin doontid insha allahu tacaala waxaan leenahay shacbiga reer Somaliland aad iyo aad baan u hambaleynayaa deegaamada cusub ee la doortay meherada shaqaynaya waxaan leenahay faraha lagala baxo deegaanka Gabiley shirkooda ha qabsadeen xisaabtan ha keeneen waxaan hambaleynayaa guddida baarlamaanka ee dabagalka hantida waxay noqotay dalkii qof la xisaabtamaya ma jiro qofba halku joogo ayuu xudoona ka samaynaya dalku uu istaagay stagnation ayaa ku dhacay ilaahayna badbaadiyo ilaahayna badbaadin jiray ilaahayna badbaadin doona subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadeena ummad isjeclaata ka yeelo ilaahay inta xun hay naga qabto subxaanahu wa tacaala ilaahay qaar wanaagis walahay naga yeelo waxaan jeclahay inaan ku soo ganaado hadalkayga meelahan dadka xaqaadka aan lahayn maangaabka wuxuu ugu sheekeeyaan labada xusbi doorashay ka baqayaan doorasho ka baqi mayno anagu ucud ahaan markii la furay 2002gii waxaan la galay tartan 6 urur oo wasiir ahaan jiray oo ka mid yahay Umar Arta Qaalib Gaboose
Saleeman anoo Finland ka imi oo Angolsta markaan goolmay ayaan ka qayb galay waana soo baxnay haddana 2012 waa la noo furay waxaa loo furay markaasna in aan saaxadda laga saaro haddana waana soo baxnay ka bixi mayno anigu waan ognahay ragga halka roodayaan ogayaan bibita furan kareen in maanta nala tartamay waan ogay laakiin waxaan leenahay distoorka lagu soo noqdo xeer 14 iyo distoorkeenu midna ma sheegayo doorasho toos ah distoorka lagu soo noqdo asxaab sida u kala horeeyaan doorashooyinkaasi ha loo galo doorashada madaxweynaha u soo horeysa ururada ayaa u dambaysa banaanka u soo baxay waadiyaa soo celiyey ee soo sababeeyey anagu ma nihin qaar ka baqa doorasho tii oo laga baqayo oo loo tegi waayey maxamed xaaji raacigaala uu ka mid yahay muuse raggii diidanaa in urur la faro ayaan u babac dhigay aan ku dhawaaqay urur waxaan dalku imi oon siyaasadda u galay in Somaliland ka dhigo dal casri ah oo sharci ku socdo gobonimadii iyo sharaftii 60 aan lahayn aan soo celiyo taasi waa tay keentay in ka soo la iiboobo in ka soo la xumeeyo haddana aan marka danta gal qaran ka shaqeeyo muuse afkiisu wuxuu yiri maxaa ayaga loo qaataa ay u dafan marka la doodo waxaan daanu danta guud baan ka shaqeeyaa dan xusma kama hadlo dan shakhsi kama hadlo saas loo qaataa ra'yiga soo jeediya markaan shirino saasaan ku jawaab marka anaga wax ma garadka lagu sheekeeyay way baqayaan yaanu ka baqana ragga le wax ma waan dhaqaana waxaan ka baqana ka baqmayno doorashada urur diyaar baan nahay laakiin sharciga ah lagu fadhiisiyo sida madaxweynuhu sheegay anaga ka yeersinay taas waa ilaalinaysa ilaa kursiga sanad baa ku hadhay sanadkaaga dhamaysan ku leeyahay nabadgelyo ku dhamayso dalka anaga gelin qasanay gelin burbur ha gelin dalkii adaa fudud adaa tagi doona Soomaaliya way jiraysaa insha Allah taala waxaan talon jecelahay inaan dadka u cadeeyo shacbiga reer Soomaaliland mashruuc xeerkani madaxweynuhu wuxuu ka gutay waajibkiisii oo ahayd amba inuu saxeexo amba inuu soo celiyo uu soo celiyey xubnaha baarlamaanka xildhibaanada ay ku doonayaan bahalkan sharciyaana sharciga wuxuu siinayaa inay ku baasgareeyaan ku gudbiyaan 5 xubnooda taas bay ahayd inay meesha maraan laakiin waxaan u aragnaa qalad inay koox ka mid ah baarlamaanka xubnaha baarlamaanka wakiiladu inay u gudbiyaan ashkato maxkamadda sare waxaan u aragnaa inuu maxkamadda sarena ay si sharci daraa uga aqbashay inay u qabasho ka qabato ma ahayn laana saddexda way wada shaqeeyeen saddexda dhardhaar baarlamaankii maxkamadihii iyo fulintii intii bay dhex weereegaysaa waxaa soo gudbiyay labadii gole madaxweyne ku soo noqotay wuxuu ku soo celiyey halkay ka bilaabantay ahaa wakiilada inuu farigeliyo uu koox u farigeliyo uu ka qabto waxaan aragnaa inay idin tahay xadgudub kale oo ku gacan maxkamadda sarena ku hada ayaan aragnaa marka waxaan leenahay maxkamadda sare maadaama aad distoorkana ciyaaraysaan waa ina siduu sharcigu sheegayo aad dhexdhexaad ka ahaataan ayna faragelin golaha iyagoo golaha xaq uma leh inay maxkamadda farageliyaan iduguna walaynay mashruuc yaala inay faragelisaan waxa intaa ka daran musabix madaxweynuhu markuu deegaanka joogad gabiilay iyo deegaanka berbera uu isiilooba inuu madaxweyne yahay uu toordhooda waxaa ka mid ah bal xeerku soo celiyey ayuu dhalinyaro kubad ciyaaraysa oo ahayd in la dhiirigeliyo ayuu yidhi xeerkaasi waa sharci hadda waa xeerku soo celiyey ayuu haddana dhalinyartii intuu jibooday ayuu toordhay waa sharci hadda uu yidhi kubiya caba hadda waxaan ku leenahay kubiya cab madaxweyne noqon maysid
haddaanad dastuurka jabisid ma noqonaysid madaxweyne. Somalilandna way kaa tashan doontaa insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.